Ambassador Cabdirasaaq Miicaad oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee ururka DEED oo ah ururka gacanta ku haya wadada isku xidha Cerigaba iyo Meele Tabca ayaa warbixin ka bixiyay halka ay marayso wadadaasi waxaana bulshada ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha wadada Tabca. Cabdirasaaq Miicaad oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. waxaanu warbixin yaroo kooban idinka siinaynaa wadadii sidii caadadaynoo ahayd aynu mar walba ma garanaysaay hawsheeda wadnay. wadadii meel wanaagsan ayay maraysaa, hadda waxay hoos ugu daadegaysaa rugay. howlo badan, shaqo adag, sidaad warbixintii horeba ka daawateen, dadkii marayay siday u faraxsan yihiin iyo sida ay u arkeen ururka DEED siday wax uga bedeleen wadadii loo socon jiray 10 saacadood iyo ka badan khatarta ku ahayd. warbixintaasoo ayaa dhaweydna lasoo koobay. waxaan marka hore dadka aan update ka siinayaa. marka ugu horeysa waxaa wadada gacanta ku haya ururka DEED. ururka DEED wuxuu leeyahay 3 guddi. hogaanka guud wuxuu ka jiraa wadankan UK. ururka guddida Cerigaba gudoomiye waxa uu ah xildhibaan Jaamac Jibriil. guddida Hargeysana waxa uu ah Dr. Carabeyto, xildhibaan Carabeyto. saddexdaba waxay isku hoos tagaan ururka DEED ee UK oo gudoomiye ka yahay Axmed Cumar Jawaabul. waad ogtihiin 3 sano ka hor baan hawshan bilownay. 3 sano qalab iyo dhaqaale ayaan isu geynay. waxaan isu geynay in ay dadka kale ee reer Somaliland inay nagala qayb qaateen oo meelo badan lacago lagaga soo shubay account-ka oo ururka DEED uu gacanta ku hayo oo tabca fan ah. ururku wuxuu leeyahay 3 account. 3da account mid DEED uu ku qoran yahay iyo inta kale oo tabca ah oo bilowgii ahayd. guddidu gudahana way ka dhisan tahay, UK-na way ka dhisan tahay. administrationka iyo dhaqaalaha waxaa baxay oo dhan dee halkan aanu ku controlnaa. wixii loo baahdo, wixii lagu soo kordhiyo, sidii waxaa u dambeysay hooyad dowladda Somaliland ee uu hormoodka ka yahay madaxweyne Muuse Biixina way nala garab taagan tahay. sidaad la socotaan dekadii Maydh ayaa iyadana hadda hawsheedii bilaabmatay. airportkii bay ayaa isna gacanta lagu hayaa, taarkii lagu wareejiyey gobolka Sanaag. wadadii baa socota oo aanu anagu gacanta ku hayno, la kaashanayno dowladda Somaliland. marka dhaqaaluhu meel bay kusoo wada dhacaan. waxay kusoo dhacaan gobolka Sanaag iyo UK. waxa allaala wixii dhaqaale soo dirayaana waxay kusoo diraan magaca tabca. waxaa loogu hagaajiyaa account-ka DEED ee fadhigeedu yahay UK iyo Somaliland Cerigaba. halkaas ayaa laga shidaab qaataa oo aanu warbixinaha guddida wadada wada ka dhegaysanaa. warbixin walba wixii ay qabteen, waxaa hortaagan, waxaa hadda ay u baahan yihiin. markii hore waxay ahayd hawshu inay wadadu horta la mari karo. maritaankeeduna waaba kasii kordhino way wanaagsantaho inta la maraa weliba lagu noqnoqdaa. waxa weeye waxaanu gaadhsiinaynaa ilaa Ceeldibir waa marka rugay laga tago. hadda waxaan usoo jeesanay wareegii labaad oo aanu isleenahay sidaydin laami ku dhigi kartaan. laamigii sidii lagu dhigi lahaa ayaan dhaqaale hadda u ururinaynaa. dhaqaalahana dabcan waxaanu ka rabnaa dee dhammaan shacabka Somaliland oo dhan ciddii wax ugu tari kartaa, ciddii wax ugu kordhin kartaa. laakiin hadda
dhaqaalahana waxaa lagu shubayaa hal sanduuq oo yaala Ergaabo iyo sanduuq yaala UK. dad badan oo dhaqaale noo soo diray oo muxsiniin oo wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh. qof kastaana wuu jecel yahay horumarkiisa dalkiisa inuu ka qayb qaato, inuu dib u dhiska ka qayb qaato, in uu horumarka ka shaqeeyo, inuu iskuulada dhiso, inuu caafimaadka wax ka qabto, inuu intaasoo dhan qurba joogta waanu dhegaysanaa. qof waliba wuxuu jecel yahay wixii horumar ah sabka hore uu soo taagan yahay. hawsha aanu hadda maanta gacanta ku haynaa waa hawshii ugu cuslayd. qalabkiina gacantaan ku haynaa, weliba rugley kala soo socota, taas oo noo sahlaysa dhagxaanta waaweyn ee burburan iyo intii la marin lahaa.